Shiinuhu waa dal cajiib ah oo tirada dadkiisu iyo baaxaddiisu ay ka dhigayaan duni gaar ah oo ka baxsan dunida kale. Waa dal dhaqaale ahaan aad u baahay oo magaalooyinkiisu aad u dhaqaale badan yihiin oo dad badan yihiin, kuwaasoo haddana ah magaalooyinka ugu nolosha sareysa dunida. Magaaladani waa Shenzhen, waa magaalo koonfurta bari ee Shiinaha ku taal. Waa magaalada afraad ee Shiinaha ugu dadka badan. Magaaladan waxaa ku nool in ka badan 17 milyan oo qof. Waa magaalo hormuud u ah ganacsiga, warshadaha, aqoonta, ilbaxnimada iyo sayniska. Waxay leedahay mid ka mid ah suuqyada sarif ee ugu ballaaran caalamka. Waxa ay leedahay dekedda afraad ee ugu mashquulka badan dunida. Waa magaalada sideedaad ee ku yaalaan tirada ugu badan 500 ee shirkadood ee caalamka ugu waaweyn. Waa magaalada sideedaad ee dunida ugu dhaqaalaha iyo wax soo saarka badan. Waa magaalada shanaad ee ay ku nool yihiin bilyaneerada caalamka ugu badan. Waxa ay laba jibaar ka bilyaneero badan tahay guud ahaan qaaradda Afrika. Sidoo kale waa magaalada labaad ee caalamka ugu daaraha dhaadheer. Dhaqaalaheedu waxa uu kor u dhaafayaa magaaladan 475 bilyan. Waxay ka dhaqaale badan tahay dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka, Qatar, Masar, Algeria, South Africa, Pakistan, Austria, Portugal, New Zealand, Kuwait, Morocco iyo dalal kale badan. Waxay ka dhaqaale badan tahay isku darka dhammaan dhaqaalaha wadamada Geeska Afrika. Waa ay adag tahay qof Shiinaha ka baxsan oo garanaya magaaladan. Haddana waa magaalo isku filnaansho dhaqaale oo aad u ballaaran gaartay. Dhammaan magaalooyinka Shiinuhu waa sidaas. Ogow, tani ma aha magaalada ugu weyn Shiinaha ama ugu dhaqaalaha badan. Dadka ku nool sanadkii 30,000 lacag gaaraysa ayaa soo gasha. 50 sano ka hor, koronto iyo biyo midna dadkeedu ma haysanin.